Jimco wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan. Halkan waa Fagaare Production. Ku soo dhawaada wararkana qodobada ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah. Madaxda maamul goboleedyada oo qoraal wadajir ah ka soo saaray khilaafka madaxweyne Farmaajo iyo Rooble. Sidoo kale madaxda maamul goboleedyada ayaa bahdilay ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyay Rooble kadib markii ay ku balameen shir uu ka maqan yahay Rooble. Qodobada kale ee warkana aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo weerar culus ku qaaday saaxiibkiisa Farmaajo kana hadlay markii ugu horeysay kiiska Ikraan Tahliil Faarax. ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyay ee Rooble oo jawaab kulul ka bixiyay wareegtadii ka soo baxday madaxweyne Farmaajo ee shaqada looga joojiyay. Haddaba muxuu Rooble ka yiri shaqo ka joojinta lagu sameeyay iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kulan degdeg ah ka yeelanaya xaaladda Soomaaliya xilli dalka laga cabsi qabo in qalalaase dagaal uu galo. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararkeena si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah. Subscribe saar YouTube-keena furo gambaleelka si uu kuugu soo dhaco wararka aan halkan soo dhigno. Hadaad horay saaxiib nala ahaydna waan kaaga mahadcelinayaa like saar muuqaalka sheena garay. Haddaad aragtidaada qaybta hoose ee commentiga noogu reebtana waan kaaga mahadcelinayaa. Aan ku bilaabo warkeena. madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya ayaa warmurtiyeed wadajir ah ka soo saaray khilaafka ka dhaxeeya madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha shaqada laga joojiyay ee Maxamed Xuseen Rooble. warmurtiyeed ay si wadajir u soo saareen madaxda maamul goboleedyada ayaa sidan u qornaa. madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka Soomaaliya ee Puntland, Koonfur Galbeed, Jubbaland, Galmudug iyo Hirshabelle, madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni, madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen, madaxweyne Axmed Maxamed Islaam, madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor iyo madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaawe ayaa waxay qadka teleefoonka uga wada hadleen xaaladda amni iyo siyaasadeed ee dalka Soomaaliya. madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxay ka xun yihiin khilaafka soo noqnoqonaya ee hay-adaha federaalka Soomaaliya oo ah mid aan u adeegaynin danta qaranka, horseedi kartana xasilooni daro amni iyo dib u dhac dawladnimada dalka Soomaaliya ee xilliga kala guurka ah. sidaas darteeda madaxweynayaasha dawlad goboleedyada waxay soo jeedinayaan qodobadan soo socda. 1. in dhammaan wixii khilaafaad ah lagu xaliyo tubta wada hadalka lana joojiyo qoraalada sii fogeynaya xal u helista khilaafka, sidoo kalena la tixgeliyo ku dhaqanka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya. 2. in la ixtiraamo laguna dhaqmo heshiisyadii ay horay u gaareen madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ee 17 September 2020, 27 May ee sanadkan iyo 22 Agoosto, lana sii xoojiyo wada shaqayntii guulaha lagu gaaray ee u dhaxaysa madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah ee lagu fududeynayo qabsoomida doorashada dalka. 3. in xaaladda baaritaanka sarkaalad Ikraan Tahliil Faarax loo maro hanaanka qaanuunka dalka iyadoo loo madax banaaneynayo hay-adaha ku shaqada leh. 4. madaxweynayaashu waxay ugu baaqayaan guddiyada farsamo ee hirgelinta doorashada ee labada heer, waa heer dawlad goboleed iyo heer qaran, in ay waajibaadkooda u gutaan si waafaqsan habraacyada doorashada ee la saxiixay 22 Agoosto ee sanadkan. 5. madaxweynayaashu waxay ummadda Soomaaliyeed guud ahaan ugu baaqayaan in laga wada qayb qaato xasiloonida iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho hufan oo nabad ah si dalku u helo horumar dhinac kasta ah. 6. madaxweynayaashu waxay beesha caalamka ka codsanayaan in ay dedejiyaan taageerada farsamo iyo dhaqaale ee hirgelinta doorashada. 7. ugu dambeyn madaxweynayaasha dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka waxay shir isugu imaanayaan magaalada Garowe 21 ilaa 23 September ee sanadkan si ay uga arrinsadaan dardargelinta qabsoomida doorashooyinka iyo guud ahaan xaaladda dalka. war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxda maamul goboleedyada ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Rooble uu cirka galay kadib markii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu shalay sheegay in uu shaqada ka joojiyay ra'iisul wasaarihiisa, inkastoo Rooble uu qaadacay talaabada uu qaaday madaxweyne Farmaajo.
waa hagaag qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan. Ra'iisul Wasaaraha shaqada laga joojiyay Maxamed Xuseen Rooble ayaa jawaab kulul ka bixiyay wareegtadii uu soo saaray madaxweynaha Soomaaliya kuna tilmaamay mid baalmarsan dastuurka dalka ee ka soo baxay xafiiska madaxweynaha. Qoraalka Rooble oo aad u dheeraa ayaa waxa ugu muhiimsanaa warqadda ka soo baxday madaxweynaha ee ciwaankeedu ahaa hakinta awoodaha wasiirka koowaad iyo dardargelinta doorashada dalka waa mid si cad u baalmarsan dastuurka kumeelgaarka ah ee qaranka, wuxuuna si cad ugu been abuurtay qodobada 87 iyo 90 ee dastuurka oo aan meelna looga xusin in madaxweynuhu faragelin karo awoodaha dastuuriga ah ee ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa. waxaa kaloo ugu muhiimsanaa qoraalka dheer ee ka soo baxay xafiiska Rooble si waafaqsan heshiisyadii 17 September 2020 27 May ee sanadkan iyo 22 Agosto ee uu gaaray golaha wadatashiga qaranka. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu farayaa dhammaan guddiyada doorashooyinka ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay dardargeliyaan dhamaystirka doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyagoo ilaalinaya jadwalka guud ee doorashooyinka dalka. sidoo kale waxa ugu muhiimsanaa qoraalka Rooble, Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu ku boorinayaa madaxweynayaasha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka in ay u fududeeyaan guddiyada doorashooyinka gudashada waajibaadkooda shaqo si loo dhameystiro doorashooyinka dalka. sidoo kale waxa ugu muhiimsanaa qoraalka Rooble sida uu qabo qodobka 3 ee dastuurka kumeelgaarka ah. Ra'iisul Wasaaruhu wuxuu xasuusinayaa madaxweynaha in uu ilaaliyo mabaadi'da aasaasiga ah ee kala socnaanta awoodaha hay'adaha dawladda, joojiyana fargelinta uu ku hayo xukuumadda iyo garsoorka oo tusaale ay u tahay sida uu isugu dayayo in uu hor istaago cadaalad u helista Ikraan Taaliil Faarax. Rooble ayaa sidoo kale garab weydiistay beesha caalamka isaga oo yiri Ra'iisul Wasaaruhu isaga oo uga mahadcelinaya doorkooda waxa uu ugu baaqayaa beesha caalamka in ay ku gacan siiyaan xukuumadda dhameystirka doorashooyinka iyo ka hortaga isku day kasta oo lagu carqaladeynayo doorashooyinka. wuxuuna si gaar ah u xasuusinayaa in il gaar ah lagu hayo shakhsiyaadka ku howlan fashilinta doorashooyinka iyo abuurista xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni. weli wararkeena ayaa daawanaysaan. si aad ula socoto warar sugan oo xaqiiqo ah, subscribe saar YouTube-keena si uu kugu soo dhaco wararkan halkan soo dhigno. Ra'iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray uga hadlay khilaafka xoogan ee u dhaxeeya madaxweyne Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaarihii shaqada laga joojiyay ee Rooble, isaga oo si gaar ah u weeraray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Kheyre ayaa warqadii ka soo baxday waxa uu Farmaajo ku tilmaamay mid aan dan u ahayn xaaladda kala guurka ah ee dalku ku jiro, isla markaana qalqalgelinaysa xasiloonida dalka iyo habsami u socodka doorashooyinka. war-saxaafadeedka ka soo baxay Kheyre ayaa sidan u qornaa: waxaan ka walaacsanahay xaaladda adag ee dalkeenu ku jiro iyo khilaafka sii xoogeysanaya ee u dhaxeeya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble. Kheyre ayaa sidoo kale yiri waxaan ugu baaqayaa madaxda dowlad goboleedyada iyo Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta in ay dardargeliyaan habsami u socodka doorashooyinka si dalka looga badbaadiyo qalalaase siyaasadeed iyo dib u dhac amni. madaxda maanta talada dalka haysa waa in ay u hoggaansamaan dastuurka, ilaaliyaanna madax bannaanida hay'adaha madaxa bannaan sida garsoorka, hanti dhowrka iyo bangiga dhexe. sida ku cad dastuurkeenna waa in xuquuqda muwaadinka loo ilaaliyo si buuxda. sidaasi daraaddeeda waa in kiiska Ikraan Taaliil looga dambeeyaa hay'adaha garsoorka si iyada, waalidkeeda iyo shacabka Soomaaliyeed u helaan cadaalad waafi ah. ugu dambeyn waxa uu Kheyre ugu baaqay beesha caalamka inay garab istaagaan Soomaaliya, isla markaana ay kala shaqeeyaan dowladda federaalka Soomaaliya sidii loo hirgelin lahaa doorashooyinka dalka. qaybihii ugu dambeeyay ee wararkeena ayaan soo gaarnay. sida uu qorshuhu yahay, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta kulan degdeg ah ka yeelan doona xaaladda Soomaaliya kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya uu maanta soo saaray wareegto uu ku hakiyay awoodihii Ra'iisul Wasaaraha xilgaarsiinta Rooble. kulankan oo ah mid aan caadi ahayn ayaa waxaa lagu eegi doonaa xaaladaha ka soo cusboonaaday siyaasadda xilli uu dalku ku jiro marxalad kala guur ah, isla markaana ay bilowdeen doorashooyinka. si kastaba xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa gashay waji halis badan, kaasi oo kala hore dalka looga badbaadiyay kadib markii awoodaha doorashada iyo amniga lagu wareejiyay Ra'iisul Wasaarihii shaqada laga joojiyay Rooble.
halkaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen Fagaare Production ood ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeenna. inta ku kulmi doona wararka soo socda waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.